Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo warfidyeenada kula hadlayay aqalka cad ayaa weerar xooggan ku qaaday dalka Shiinaha isagoona ku tilmaamay in Shiinaha uu weerar cad ku soo qaaday dunida guud ahaan gaar ahaana dalkiisa isagoo caabuqa COVID-19 ku sifeeyay dagaalkii ugu cuslaa ee abid lagu soo qaaday dalkiisa waxa uuna barbar dhigay inuu ka daran yahay caabuqa COVID-19 dagaalkii uu wadankiisa ku qaaday dalka Japan dagaalkii labaad ee dunida iyo weliba burburkii ku yimid daarihii mataanaha ahaa 11 Sebteembar 2001. Madaxweynaha ayaa ku eedeeyay dowladda Shiinaha in shaybaar ku yaala dalkaasi uu kasoo fakaday cudurkani islamarkaana ujeedadiisu ahayd in lagu waxyeeleeyo quwadda iyo horumarka dalkiisa. Dowladda Shiinaha ayaa iyaduna dhankeeda ganafka ku dhufatay eedeymaha uu soo jeediyay Mareykanka waxayna aaminsan tahay in isla Mareykanku uu yahay mid ka abuuray fayraskani oo u soo dhoofiyay dalkaasi.